السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطرة واي كسر وهذا channel كي كالمة. ما أنت وحن رواية أنا هذا اللقيب صدق صدق لو سبيش soft cheese أما لبنة وحو قسم يسنيها يوغurt ويوغurt عادي لو قضوا ليدل وح فروت أكو مجرو وح سكر أكو مجرتو 1 لتر عصبة هذا هي الكرتين عصبة بدر وقسي في عنتها سي سولت وحكروا بعنتها وحلي هذا cheese clot cheese clot وكان ومرير وقفيفة أو بريسيد قارص عمل إيه وحلا قضاء أونلاين 1 بون أو 2 بون يجوكتا أيضا cheese كلو سميان أساسي أطالوا وسيد قارص ذو كليتو هذا ربطو 3 حبة 4 حبة إني أحط إسكولاب هذا إرتاحي وحكروا بعنتها عانمير أو باستمير يب بيها يور كدادسو wax alla baaqulga haysatay digsi wuxuu rabaa ahaado biyaha meel ay ku daataan kanay tabcado dulduleelkiisa weeyahay waxaan dhexda ka galiyay caanamir yar oo dulduleelkiisa yar yahay cheese clot-ka ku daboolay waxaan sameynayaa hadda yogurki iyo hal qaado cusbo isku daraaya waa ka soo qaado cusbo waxaan sameynayaa waa isku walaaqaya ilaahay raahdo ilaa cusbada ay dhex gasho wax kale oo sameynayso ma jirto laba gacmood soo cusbada intaa ku daraysid waxay ku xiran tahay adiga dhadhankaada saa jeceshahay haddaa rabto inuu soft cheese-ka xoogaa dhanaan kuu noqdo cusbada ku badi haddaadan cusbada badan jeclayna wax yar ka dhig markaa qasaysidbo wax yar dhadhami dhadhanka saa u jeclaad hadhow biyo badanaa ka baxaay intaan waxay noqonaysaa laba u qaybood qayb biyo waaye waxaan sameynaynaa marka yogurkaana soo qaadaynaa cheese clot-kaan ku shubaynaa haddii ilaaha yidhaahdo waa kaasaa yogurkii xusbaan ku qasay waxaan ku shubay cheese clot-ka waxaan kaliya layga baahanyaa marka inaan sameeyo inaan 4 gees isku keeno oo aan maro ku xiro ama laastika aan ku xiro ama wixii aan haysto maradii 4 dacal ka soo qabtay laastika yaraan ku xiray meeshaas waxaan ku dhaafayaa ilaa 24 saac haddii ilaahay yiraahdo waa kaasaa biyo waxay bilaabeen already inay ka daataan ay bilaabeen ilaa caawa biyahaas ka daadanaya korka hadaan dabool uga dabooli karo waa ku daboola insha Allah bariyaas arkeynaa. Hi, we back again next day. waxay soo wareegsaday waxa qadar siciid waayo waxa ka soo wareegsaday 18 hours 18 saacadood waa u jeedaa cheese amlo noqday inta biyo ka baxdana waa ka saar intaasoo biyo ka baxay biyaha iyo cheese isma taabanayaan hadda u jeedeen digsiga saaxa u dhaxay caan bastamirka saa u dhaxeeyo soo haday istaabtaan biyaha cheese-ka wuxuu ka dhigayaa qoyaan soo biyahana waa ka dhibci karaan hadaa rabto ka dheer waa ku dhaafi kartaa laakiin inta muddo ka badan hadaa ku sii hayso wuu adkaanayaa cheese-ka soo hadda waxaan sameynaynaa lastikada ka furaaya waxaan ku ridayaa baaquliga dhalada baaquliga dhalada badana isticmaala caadi ahaan wuxuu ii yaalaa cheese-kaaneyto 2 isbuuc oo la jiro 3 isbuuc laakiin hadda familka dhan way jeclaadeen rootiga barsadaan soo isbuuc ahad u sameeyaa kan pepper waaye laakiin loos hadaa rabto ku dari kartaa wax allaal waxaa jeceshahay oo dhadhankaada u jecel yahay aniga waxaan jecelahay pepper kaaneyto waa Syrian pepper kuleel aad ma ahan maxaa ahayd budana waaye oo qaleel ah lacala haday qab dhibco yar yar oo biyo ay ku jiraan cheese-ka waxay uma qoyaanka meesha ma fadhiisanayo oo spice-kaas ayaa ma taqaana qoyaanka dhuuqaayo soo waa ka soo bixinaynaa cheese-ka inta meeshaana ku rideynaa cheese-ka intaan ka bixinin baaquliga waxaan rabaa inaan idin tusiyo suu u yaalo haddaa ujeedaan wuu adag yahay maxaa iraahdaa ma jilicsana adeeg aadna ma ahan laakiin wax rootiga la marsan karo oo jilicsan waayo just waxa ugu weyn oo sameynaysa waxa waa inaysan istaabanin biyihii aad ka bixisay iyo cheese-ka inaysan istaabanin soo cheese-ka waa kaasaa anoo kaamirada haayo ma gelin karo soo kaamiradaa daminaa waxaan kaamiradan daminayaa waxaan ku ridayaa baaquligaana ku ridaa kana saasa ugu rida waa ka baaquliga soo igu jiraa waxa kaliya aan rabaa inaan sameeyo hadda waxa waaye waxaan rabaa inaan spice kale korka ka saaro waa kana korka ka saaray adiga cadadeed inta jeceshahay waxaan bisbaaska u saaray marka ugu horeyso waa
dried pepper waaye, pepper oo Syrian ah oo la qalajiyey. qaleelkaasi budada waxaa ugu shubaa haddii lacala xoogaa biyo ay ku jiraan ama dhibic yar ay ku jirto inuu mataqaanaa oo ay dhuuqo uusan biyaha ay isa dhex fariisan meesha. marka waa kasaa. This is how it looks like. marka ugu dambeysa end result waa kasaa. gees haddaa u fiiriso qasaar waa kasaa. faranjeerka kugu jiraaya saartaa u isticmaali kartaa canjeerada ku cun. maxaa dhahaa just to make sure inuu meel qaawan uusan ku jirin baryaha ugu horeysa intuu biyaha ka dhamaanayo. loosaa badanaa ku darsan jira laakiin hadda loos iima yaalo. spicekan waa jeclahay, waa dhanaan waaye. so that's it. waxaa tusinaa haddaa waqti haysin canjeerada anoo marsadar waa tusinaa. so that is 1 liter oo cheesecake ah oo meesha igu jiro. faranjeerkan gelina inta biyo ka baxdana waa kaasa. waxaasoo biyo ka baxay. cheesecake is very popular. family kana waa jecel yihiin. isbuuc kasta hadda sameeya. awal kor waxaa xasuustaa markaa bilaabay inaan bilbil u sameyn jiray oo aniga badanaa aan cuni jiray qof kale uusan cuni jiray. laakiin hadda kulli way barteen. maxaa idhahdaa canjeerada lagu darsadaa, rootigaa la marsadaa, bulgurkaa ku cunaa, wax allaala waxa qudaartaa lagu cunaa, wax kastaa marsan kartaa. hadhow waxaan rabaa inay tusi anoo root ku darsanaayo. mac salaama. I hope inay idin anfacdo. aa ka hesheen videogii. labnihii waa sameeyey. waxaan rabaa inaan snack ku cuno ku isticmaalno hadda. waa kana waxaan rabaa inaan ku sameeyo chickpeas bread. waa sidii saliid laguma dubin. waa chickpeas ka samaysan yahay iyo flaxseed. looskii aan idin tuso marka hore iyo nutska aan idin tusiina waa kana asagoo la shiiday. saliid yaraa lagu shiidayaa aan badneyn. saanu noqonaa sidii waxaa loo mariyaa rootigaa la mariyaa. so laba gacan inaan ku sameeyo waayo waa dhigaa wax yar. waa kana intaan bari rabaa inaan mariyo before lebna aanu ku darin. waa lagu quraacan karaa haddaad doonto. haddaad doontona qada ahaana waa cuni kartaa. waxaa jeceshaa ku damaraq intaa u samaysato. so that is the bread. waa mariyay hal gacanaan ku marinayaa. so wax yar lebnaa rabaa inaan ku daro oo maanta aan sameyne. waa kana iga raali ahaad hal gacanaan ku sameynaya. that's that. waa sameeye. wax yar waxaan rabaa inaan ku daro oo dried herbs ah oo dill waay kan aada u jecelahay. dhibic yaroo olive oil ama liin. waxaa jeceshahay maanta olive oil iga haysaa inaan ku darsado wax yar. so that is my breakfast oo snack. waxaa rabto isticmaal. haddaa rabto waxaa ku cuni kartaa rooti toast intaa samaysato. haddaa rabto bariisaa ku cuni kartaa. waxaa ku cuni kartaa bulgur ama inay grain aa samaysata ama maraq ama qudaar. that's it. this is labna. I hope inaad ka hesheen. aada u sahlan yahay. wixii ugu sahlanaa oo aan sameeyey oo aada iyo aada ii anfacay ay ka mid tahay. uma baahni inaan Philadelphia soo gato. uma baahni inaan wax kale soo gato. uma baahni inaan soo gato root. haddaan marsanayo batar xataa uma baahni. kanaa marsada. canjeeradaa marsan kartaa. rootigaa marsan kartaa oo aad samayso oo patty ah. kanayta grain kuma jiro. waa chickpeas kaliya. digsiga kaliya. bartaawada waxaa marinaysaa bartaawada waxaa marinaysaa bis israashiir oo saliid leh. waa ku dubaysaa. that's our bread. haddaa rabtiin ayagana mar kale idin tusinaa. wax dhiba ma ahan. sida rootiga oo cuni kartaa. sida sawaayada saa jeceshahay. labnaa ku cunaa. waxayna loosaa marsadaa. this is packed with as I idin sheega minerals and vitamins. so la-aantiis ma joogi karo. kanaytana proteina ku jiro. calciuma ku jiro. vitamin all herbs waxay leeyihiin vitamino oo aan cuntada ku jirin. so any herbs will do. oregano wuxuu rabaa aada marjoram bay leaf wuxuu doona ha ahaado. ama haddaad doonto fresh herbs aa ku darsan kartaa. sometimes fresh herbs aa haystaa. laba caleen kasoo gooso. korkaa ka saaran kartaa. ama quraac ka dhigo ama qada ka dhigo. insha allah next time haddaa wax specific aad jeceshihiin uu jiro iisoo sheega. waa sameynayaa. cuntada aan sameeyo waa cunto aada u sahlan.
ma jecel cuntooyinka waqti badan qaadanaya ama saacado dheer loo soo marayo ama complicated ah waxaan jeclahay inay easy tahay diyaar ee tahay dhaqsin ee halaabeynin calorigan uu ku yaryahay ama carbs uu ku yaryahay culeyskayga progress weyn ma sameynin ugu yaraan adiga kiilo camal iga dhacday laakiin at least way bilaabay cuntada caadiga waa kusoo noqday waa iska dhaafay wixii oo mataqaana sokortii xalwadi culeyskayga wuxuu bilaabay xoogaa kiilo inuu hoos soo dhaco insha allah waxaan isku day inaan stick to my own food oo muddo badan aan cunay oo aan marka culeyska iga dhacay successful ee ahayd 15 kiilo 20 kiilo iga dhacday laakiin aan haddana mar labaad aan ka leexdo cuntadii Soomaalida aan u noqday waxaan isku dayaa inaan cuntada caadi ku soo noqdo laba xabo kan hadaa cuno qado ama quraac is enough all the minerals aan rabo ku jiraan vitamins oo ku jira sometimes hadaa haysto tahini oo liin iyo lagu miiray shisinta la shiidan korka uga darsada asagana ama waa ku dardaaran kartaa daabta liinta shisintan insha Allah next time ayaan tusinaya waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen cuntadayda ama aad ka faa'iideysateen insha Allah subscribe and comment and ask me hadda wax su'aalo qabtidna isoo weydii maca salaam